maayir ku-xigeenka degmada Laascaanood ahna kusimaha maayirka Cabdiraxmaan Maahir Cashuur ayaa ka waramay gaadiidka qaar ka dhex shaqeeya magaalada Laascaanood kuwaas oo sheegay inay yihiin bilaa lambar isagoo amar ku soo rogay inay sameystaan lambaro sidoo kale waxa uu ka hadlay dad uu sheegay inay caadeysteen inay wadooyinka ku gooyaan dhagaxaan iyo dhismayaal isagoo uga digay in haddii ay ka guran waayaan wax laga qaban doono dhowrka qodob oo kala ah waxaa jira bajaajyo aan lambar lahayn oo magaalada ka shaqeeya waxaa la farayaa dadka bajaajyada leh in ay lambar u sameeyaan laga bilaabo maanta oo taariikhdu tahay 24 bishii tobnaad ciddii laga waayo lambarka dawladda hoose waxay ka qaadaysaa tallaabo sharci dhinaca waa laga digaa khatar badan bay dadka ku hayaan dad badan ayaa sidaa wax ku gaadha oo waayeel leh oo caruur leh oo haween leh waxaan leeyahay bajaajyada dhinaca bidix waa inaad ka xidhaan ciddii ka xidhi weyda oo lagu arko bajaaj laga bilaabo maanta ay tahay taariikhdu 24 bishii tobnaad ilaa iyo bisha 11 shanteeda ruqso intaasaad haysataan oo waxa weeye wadooyinka markaad xidhaan biyihii iyo haddii ay ku run yahay dadkii iyo gaadiidkiiba dhib ayaa gaadhaya biyihii guryihiiba dhib geysanayaan waxa weeye gaadiidkii dhagxintii uu jeedaya dhib way geysanaysaa dadkii waxa weeye dhib uu geysanayaa waxaan leeyahay iyagana tallaabo ayaan ka qaadi doonaa waan u soo jeesan doonaa horena waan uga hadalay dhanka kale xogayaha fulinta dawladda hoose ee degmada Laascaanood Cabdi Khayr Dir ayaa kormeer ku gala bixiyay laamaha kala duwan sida kastamada maaliyadda iyo dhammaanba goobaha cashuuraha ka soo xaroodaan xogayaha oo uu heliyo mid ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka ayaa intii uu kormeerka ku guda jiray kulamo la yeeshay saraakiisha ugu sarsareysan laamaha kastamada isagoona halkaasi ka dhigaystay warbixino la xidhiidha qaabka ay u shaqeeyaan waxa halkan lagu soo booqday goobta kastamka xogayihii degmada Laascaanood isagoo ku maraya kormeer goobaha cashuuraha oo dhan gaar ahaan waxa noogu yimaad xarunta kastamka guud halkaas oo cashuuraha guud oo lagu qabto cashuurta dawladda dhexe iyo degmadaba kormeerkaas annagu aad baan ugu soo dhaweynay xogayaha degmada waayo dakhli ilaaliyaanu nahay dakhliga dawladda dhexe iyo dawladda hoose inaanu ilaalino baanu goobta u joognaa oo ururino oo hareeraha ka taagnaano digaal lagu dhex jiray kormeerka xarumaha dakhliga dawladda hoose lagu mareeyay waxa kaliya aan baaqu jeedinayaa mar walbana aan ku celcelinaa dadweynaha degmada Laascaanood leh ku nool inay cashuurta bixiyaan waxaan idin leenahay cashuurtood bixisa waxa la helayaa horumarka degmada boqolkiiba boqol way fiican tahay amniguna wuu wanaagsan yahay waxaan qabanaa lacagta dakhliga dawladda hoose si wanaagsan ayaa dadweynuhu u bixiyaa xoolaha iyo dejinta iyo si wanaagsan baa nolosha xogayaha ayaa ka hadlay ujeedka kormeerkiisa isagoona sheegay inay tahay si ay u dardargelin lahaayeen hawlaha ay u hayaan bulshada alxamdulillahi rabbil caalamiin wal caaqibatu lil muttaqiin wa la udwana illa 'ala al-zalimin ama ba'da maanta 24 bishii tobnaad 2016 waa maalin talaada waxaan ku jirnaa hawl maalmeedkayga caadiga ahaa aan ku mari jirnay hawlaha dakhli ururinta ee degmada halkan aan joognaa waa qayb ka mid ah qaybaha dakhliga lagu ururiyo waa kastamkii Laascaanood ayna dakhliga ku qabtaan wasaaradda maaliyadda iyo dawladda hoose waxaan soo booqanay inaan dheendheyno ilaalino dakhligu soo soconayo haddii ilaahay kula shaqadu soo socoto si fiican bay shaqadu loogu socotaa wax dhibaato caqabado ka jirtaa ma jirto shaqaduna way wacan tahay waxaa la fadhiyaa isna sarkaal ka mid ah saraakiisha kastamka laanta turmataariyada kulli isna kelmadiisu oran doonaa waxaan ka codsanaa dhammaan shacabka magaalada degan iyo kuwa aan degan soo maray meesha in si fiican oo sharaf ku jirto oo aan dhibaato ku jirin cashuurta ku waajibtay ee lagu weydiinayo kastamka inay u bixiyaan ciidanka meesha jooga ama shaqaalaha ha noqday maaliyadda ama ha noqday shaqaalaha dawladda hoose ay si wacan uga shaqeeyaan dakhliga oo la kobciyaa wuxuu ka mid yahay iyadoo la kobciyay dhaqaalihii dalka
haddii dakhligu hoos u dhacona waxaa hoos u dhacaya dhaqaalihii dalka marka waxaan rajaynayaa ama aanu ka filanna insha allahu tacaala inuu sidii la rabay si kacan u socdo wax dhibaato oo ka jirtaa haba yaraatee ma jirto waana shaqadii caadiga ahayd iyo kormeerka ku iman jirnay wabillahi tawfiiq مولد علي ستار تي في لاصعانود